aamina soo dhawow waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkeenan khaaska ah aan ugu talagalnay runtii sababtaan meesha u soo fadhiisanay waxa weeyaan waa su'aalo inaanu ka weydiino yacnaha waxaad ka mid tahay hablaha hal abuurka ah ee creative-ka ah ee gobolka jooga ee ugu firfircoon sida in ognahay dhan waxaad ka tahay hooyo dhinac waxaad ka tahay xirfadle dhinacna waxaad arrimihii guriga iyo deebaad maaragtay aad haysaa iyo caruurtii inta aamin haddaan kaga imaado su'aashayda aan u guda galo waxaad ka mid tahay hablaha hal abuurka sida aynu ku garan ognahayba waxaad leedahay beauty salon yacnaha dumarka lagu qurxiyo beauty salonkaas adigoo leh goorma ayaad aastay beauty salonka bismillaah salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah awalan waxaan salaamayaa dhammaan dadka iskugu yimi shirweynaha waxaana halkan mahad uga celinayaa ilaaha raxmaana iskuulkan keenay dhammaanteen inaynu shirkan inoo qabsoomay inoona suuro geliyey marka xigta waxaan halkan mahad uga celinayaa hal abuurka hablaha sool oo ah hablo ku dayasho mudan run ahaantii oo ah hablo dhiirigelin badan gabdhaha reer sool u haya waan idinka mahad celinayaa sida quruxda badaneed mar walba garab taagan tihiin hablaha xirfadlayaasha leh iyo hablaha aqoonta bartay bulshaka beauty salon waxaan aasaasay 2015 bishii labaad sanad aamina kolley sida nooga dhawaajisay waa xilligeeda aasaastay aamina waxaa jira qofku marka uu doonayo inuu hal abuur sameeyo ama uu noqdo qof creative ah runtii waxaa jira dad maxaan ku dhahdaa ku dhiirigeliya fikirka sidoo kale waxaa jirta qof isagu fikirkiisa la yimaada ma jirtaa marka adiga fikirkan markii aad la timi cid kugu sabood garaysay oo kugu dhiirigelisay arrinkan inaad hore u socotid masha Allah way jirtaa horta runtii marka aad wax abuurayso way caqabad badan tahay run ahaantii laakiin way jirtay baahida gobolka ee bulshadu ay u qabtay xirfadda noocan inaan u sameeyno ayaa ahayd dhiirigelin maamina noo sameeyay meelaha sidan oo kale anigu bariga hore waxaan sameyn jiray daan kaaga sheekeeyo waxaan ahaa artist ka qolada la yiraahdo oo xirfadan anigu ma baran laakiin waa hibe Ilaahay siiyay Ilaahay waana mahad iskale waxaan jeclaa inaan maxay ahayd wax sawiro xinayaasho kale markaan galaas miidka ahaarno ahaantii intii aan galaaska ila joogtay markaas garanaysa markii aan macnaha qof isku filan noqdeen waxa ii suura galay inaan qof sharixi karo aan bulshadii u soo bandhigi karo hibadii Ilaahay siiyay ugana faa'iideyn karo run ahaantii anigoo xinayaasha iyo farsamada gacanta waxa la yiraahdo ee domesticada loo yaqaano oo maxay ahaydeen waxyaabaha noocaas ka shaqeeya ayaa waxa ugu dhiirigeliyay dhalinyarada aamina hadda ciidanka noomarsid ka war hadii aad make up ko kale iyo keegiska kale aad ugu dirtay run ahaantii bulshadayda ayaan anigu wax ku ahay mar walba oo Ilaahay aamina sida ka waran caqabada noocaas aan haysatay hadda naga saartid run ahaantii Ilaahay waa igu guuleeyay oo way ii hirgashay inaan bulshada u sameeyo maxay ahaydey meel ay isku qurxiyaan xinayaasha ka bartaan run ahaantii markii aan iskuulka maxay ahayd koofeerka asaasiyay arday ayaan qaatay aan ugu talagalay inaan hibadeyda ii gaarka aan uga faa'iideeyo oo aan la soo baxay baa jirta oo markii dambe ay garab taagan oo ila shaqeysa aad baa ugu mahadsan tahay sida wanaagsan aad nooga jawaabtay wali waxaan ku dhex jirnaa su'aalihii ama kelmadihii aan walaasheen aamina ugu talagalnay aamina inta aad sheegtayba waa wax jira haddaan ka mid anaga tusaale ahaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka runtii beauty salonkaaga markaad furtay waxaan ka mid ahaa dadka aadka ugu farxay aadka ugu soo dhaweeyay maadaama gobolkeenu markii hore hal beauty salon ba ka furnaan jiray runtii bulshadu inta badan waxay kala kulmi jireen caqabado intooda faraha badan kolley way garanayaan dadka inta badan beauty salonada ku xidhan inta haddaan inta kaga imaado aaminay qofku marka uu wax abuurayo waxyaabo badan baa runtii ka hor yimaada lambar 1 waxaan oran karnaa waa caqabadaha oo kale ma jirto adiga wax caqabad ah oo kugu timi intii aad hawshan yacnaha qurxinta aad ku dhex jirtay bismillaah horta waa runo waxaan caqabad lahayn lagama gudbaba waxa caqabad kaliya kugu filan shaqadan waa shaqo aad u dhib badan oo waxay saad ogtahay maxay ahaydey adkaysi baa u baahan tahay caqabad waxa kugu filan in aad adiga oo maxay ahaydey dhaleeya oo xaq baahidii guriga laga rabo maxay ahaydey xaqna laga rabo inaad bulshadii qancisid ruuxaantii adkaysi bay u baahan tahay dhabar adayg wax bulshadeeda oo maxay ahaydey dhibaato iga kulmayna maadaama iyagu dhiirigelinayna maan ku arag ma sha Allah ruuxaantiina wax qabada oo xagga gurigeyga igaga timi iyo ma sha Allah dadkayga iyo xaajigeyga way la garab taagnaayeen in arinta noocan oo kale aan ku dhaqaaqo la'aantoodna may suura gasheen ruuxaantii aaminay kole waan iska soo gaabinaynaa
haddaan su-aashayda kale u gudbo waxaad ka mid tahay waxaad tahay hooyo waxaad tahay gabadh dhalinyaro ah oo haddana xirfadla ah sidoo kale waxaad ka mid tahay ardayad wax ka barata jaamacadda Golis University markaa sidee bay gabadha wax baratay ay u horumarin kartaa nolosheeda iyo nolosha qoyskeeda iyo nolosha bulshadaba waxay waa muhiim qodobkaasi horta aqoon la'aan waa iftiin la'aan qofkuna haddaanu aqoon lahayn dee bulsho ma hagi karo run ahaantiina qofka wiil wax baray hal qof buu wax baray qofkii maxay ahayd gabadh wax barana waxaan dareemaynaa inuu bulsho wax baray gabdhaha wax caqabada oo maxay ahayd horta xagga waxbarashada waxaan jeclaan lahaa inay ay adkaysin yeeshaan oo maxay ahayd waxbarashada ilaa maxay ahayd ay iska dhisaan run ahaantii waayo qofka waxa waxbarasho la'aan meel ma socon karo su-aasheeda kale waxay tahay waan iska soo gaabinanaa aaminaay xirfad baad baratay noocyo badan hadday tahay keegiskii hadday tahay saaloonkii cilaansaarkii waxyaabo badan baad baratay runtii sidaad noo sheegtay ama sidaan kugu ognahay ma jira dhalinyaro gobolka joogta oo aad soo saartay ama aad wax bartay si iyaguna dee ay maabari ka maalin haddii ay damcaan in iyaguna sidaadoo kale dee saaloon weyn u furtaan ay ugu shaqaystaan yacnaa fursadaada adigu aad baratay ama way xirfadaada ma sheer garaysaa oo bulshadii kale ma la wadaagtaay oo ma isku daydaa dadkaas dad badan oo xirfadlayaal ah inay gobolka ka soo baxaan maadsan tahay horta hadafkayga koowaad baa wuxuu yahay inaan dadkana u shaqeyn berrina bedeli lahaa ilaah bayna mahadi u sugnaatay oo way jiraan dad badan oo maanta aan soo saaray ilaah baana mahadda iskale oo maxay ahayd xirfadlayaal oo shaqaysta oo guryahoodii kafeeyay aad baad mahadsan tahay Aamina idinkuna waa ku mahadsan tihiin sida wanaagsan aad noo dhageysanayseen intaad waqtigiina siiseen Aamina Cumar aad iyo aad bay u mahadsan tahay oo barnaamijkeena panelka noogu casuunayd waa uga mahad celinaya waqtigeeda qaaliga ay noo hurtay sida quruxda badan ee su'aalihii uga jawaabtay aad iyo aad bay u mahadsan tahay